nabaday waa mar kale iyo barnaamijkeeni gorfaynta guusha yaani Yoonis Cabdiraxmaan waxaynu maanta ka hadli doonaa muhiimadda uu leeyahay hadaf dejintu ama qiimaha uu leeyahay hadafku iyo sida aad u dejin karto. waxaan halkan kugu wadaagi doonaa talaabooyin aad qaadi karto si aad u dejiso hadaf haddii aad tahay shakhsi aan nolosha ka lahayn ilaa hadda wax hadafa. hadafku marka hore waa qiimaha ugu qaalisan ee nolosha, waana mid aad ugu muhiima noloshaada. waxaana uu fursad kuu siinayaa inaad ka guul gaadho noloshaada, isla mar ahaantaasina aad ku dhaqanto nolol ku dhisan farxad iyo raynrayn. balse haddii aanad nolosha ka lahayn wax hadafa, waxaa mushkiladu noqonaysaa inaanad guul gaadhin, isla mar ahaantaasina aanad noloshaada ku qaadanin wax farxada, taasi oo dhib kugu noqonaysa haddii aad heshan ay kugu yaraanayso farxaddu. haddaba hadafku muhiimadda uu leeyahay, hadafku waxa uu muhiim u yahay qof kasta iyo bulshada oo dhan, kaasi oo kusoo kordhin kara guulo fara badan iyo sidoo kale isagoo aad tallaabada ku horseedaysa inaad guul ka gaadho noloshaada. tallaabooyinka aad qaadayso si aad u dejiso hadaf waxa ay noqonayaan haddii aad tahay wiil dhalinyaro ama gabadh dhalinyaro ah oo da'diisu tahay 15 sano jir ilaa 20 sano jir inta u dhaxaysa oo aan nolosha ka lahayn wax hadafa, waxaa loo baahan yahay inaad noloshaada isku dabaqabatayso, isla mar ahaantaasina aad ka yeelato hadaf cadkaasi oo ku kala samaysan, isla mar ahaantaasina kugu kala qorshaysan lambar 1 ilaa lambar 10. tusaale ahaan wadooyinka aad marayso waxaa ka mid ah haddii aanad ahayn qof hadaf u dejisan yahay, marka hore fadhiiso, kadibna naftaada waqti la qaado, ka fikir mustaqbalkaaga soo socda iyo waxa aad hiigsanayso iyo waxaad rajaynayso, kuna dabaq tusaalooyinkani soo socda. isweydii maxaad mustaqbalka u taagan tahay, maxay tahay sababta kugu kalifaysa inaad qorshayso hadaf, maxaa kugu qorshaysan noloshaada, sideed u maarayn kartaa. su-aalahani waxaad uga jawaabi kartaa si aad guul uga gaadho noloshaada, inaad waqti la qaadato naftaada, isla mar ahaantaasina aad qorshayso qiimaynta waqtigaada. inta aanad qorshaynin waqtigaaga waa inaad dejisaa hadafka adigoo u kala horraysiinaya sida ay u kala fudud yihiin marka la gaadho fulintu. marka aad u kala dejiso hadafkaaga lambar 1 ilaa lambar 10 inta ka dhaxaysa, waxa aad ku dabaqaysaa su-aalahani aan soo sheegnay iyo sidoo kale inaad noloshaada guul ka gaadho waxyaalaha kuu fududayn kara. hadafku waa dariiqa koowaad ee noloshaada guul kaga gaadhi karto. waxaad aragtaa maad maqashaa dad laguu sheegay inay nolosha guul ka gaadheen, balse dadkaasi 95% waa dad hadaf noloshooda ka lahaa. dhammaan guulaystayaashu waxa ay nolosha ka lahaayeen hadaf cad, kuwaasi oo qaarkooda duruufta u kaliftay, qaarkoodna ay dejisteen markii ay arkeen dariiqyada ay ku guulaysan karaan inuu yahay hadafka oo keliya. haddaba hadafku muhiimadda uu ku leeyahay waxa weeyaan inaad dejiso, isla mar ahaantaasina qorshayso qaabka aad u gelayso ama aad u fulinayso hadafkaaga. marka aad dejiso hadafkaaga, nolosha naftaadana waqti la qaadato, noloshaadana ku dabaqdo, waxaad u fulinaysaa sida ay u kala fudud yihiin. balse intaanad fulinin waa inaad sidoo kale qorshaysaa, ama tallaabada labaad aad qaadaysa ay noqotaa in aad qorshayso waqtigaaga adigoo u kala qorshaynaya sida ay kugu fudud tahay. tusaale ahaan 1 saacadood, 30 daqiiqo, 15 daqiiqo, 10 daqiiqo iyo wixii la mid ah. marka aad qorshayso waqtigaaga waxaad dib noqonaysa inaad fuliso jadwalka waqtigaaga, balse haddii aad la qabsato 10 ilaa 30 inta ka dhaxaysa, waxaa fududaanaysa inaad waqtigaaga qorshayso, isla mar ahaantaasina uu socdo si maarayna adigoo ugu maareeyay sidii loogu talagalay, isla mar ahaantaasina aad ugu dabaqdo iyadoo ay saacad kasta ku xisaabsan tahay, isla mar ahaantaasina aanad si fudud ku bixinin waqtigaaga. balse haddii aanad maaraynin waqtigaaga, noloshan aad hadaf ka leedahay waxa aad kaadaysa inaad ka guul gaadho, isla mar ahaantaasina aad ka naxiso. kadib marka aad maarayso waqtigaaga, waxaa loo baahan yahay inaad u samirto dhaban adagna ka muujiso waqtigaaga si aad guul uga gaadho hadafkaaga. qorshaynta waqtigaaga waxay keenaysaa dhibaato fara badan adigoo la qabsanin, iyo mararka qaarna kugu kalifta inaad ka dhex baxdo asxaabta qaar aad la fadhiisan jirtay ama aad meel wada joogi jirteen. balse qof kasta noloshiisa isagaa u xora una gaara. asxaabtuna waxaa laga yaabaa inay talooyin kugu biiriso, balse aan noloshaada wax iyagu qaybaha ku lahayn. marka aad waqtigaaga qorshayso lana qabsato qorshaynta waqtigaaga, waxaa loo baahan yahay inaad u kala fuliso hadafyada siday kugu kala muhiimsan yihiin adigoo ku dabaqaya siday u kala fudud yihiin. tusaale ahaan hadafka koowaad haddii uu ka fudud yahay ka labaad, waa inaad ka labaad fulisaa si aanad ka koowaad ugu dhibtoonin. haddii aad ka koowaad ku bilowdo, waxaa dhib noqonaysa inaad noloshaada guul ka gaadho, waayo waxaa laga yaabaa inuu kugu adkaado
isla mar ahaantaasina haddii aad hadafkaada ku bilowdo waxa ay dhibtu noqonaysaa in aad ku celceliso kadibna aad ka daasho inaad nolosha guul ka gaadho. taasi waxa ay keenaysaa inaad ka niyad jabto isla mar ahaantaasina aanad ku dhaqmin dariiqooyinkan aan kuu soo sheegay. balse haddii aad u kala fuduliso sida ay u kala fudud yihiin waxaa fududaanaysa inaad noloshaada guul ka gaadho. aad heshana helinka guushaada iyo raadinta dariiqa guusha inay kuu fududayso. marka aad bilowdo fulinta hadafkaaga waxaa kaa hor imanaya caqabado fara badan, iyadoo caqabadahaas loo baahan yahay inaad u dhabar adagto samir iyo dulqaadna u muujiso si aad guul uga gaadho waqtigaaga. caqabadahaasi waxa ay kala noqon karaan qaar kaala soo darsa ehelkaaga, faamligaaga iyo sidoo kaleeto qaar kaasoo waajaha deegaankaaga bulshada aad ku nooshahay iyo sidoo kale qaar kaasoo waajaha inaanad helin waxyaala ku taageera. haddaba ujeedada barnaamijkani waxa uu yahay inuu qof kasta noloshiisa ka yeesho hadaf cad, taasi u fududaynaysa inuu nolosha guul ka gaadho isla mar ahaantaasina uu helo dariiqa iyo raadinta guusha. waxaa kuu fududayn kara rajada guusha inaad ka dhabayso inaad samayso hadaf. waxaanu ogsoonahay inuu ilaahay qur-aanka ku yidhi hal yastawi alacmaa waalbasiir, iyo sidoo kale inuu ilaahay qur-aanka ku yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun. ogsoono uma sinno qofka indhahala iyo qofka indhaha qaba marka loo eego adduunkan aynu joogno, waayo qofka indhaha qaba waxa uu arki karaa waxyaalaha hortiisa yaalla, balse qofka kale waxaa dhib ku noqonaysa inuu helo waxyaalaha hortiisa yaalla. sida aanay u sinnayn qofka caalimka ah iyo qofka jaahilka ah, kaasi oo qofka caalimka uu raadi karo dariiqada wax u gaari karo haddii ay dhib soo waajahdo. soo jeedinta maanta waxa ay tahay qof kasta oo daawada ama dhegaysta muuqaalkani ama codkani in uu ka guul gaadho noloshiisa isla mar ahaantaasina uu sameeyo isku day hadaf dejin ah kaasi oo ku guulaysan karo noloshiisana guul kaga gaadhi karo. taniintana ku kulmi doono barnaamijka xiga gorfaynta guusha qeybteeda kale. waxaan idinku dhaafaynaa waad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo inta aad nala socoteen aad baanu idinku mahad celinaynaa. taniintaynu isugu iman doono barnaamij kale waxaan idinku dhaafaynaa sidaasi iyo nabaadiino. wixii weydiin iyo sidoo kale su-aalo ama tala soo jeedina waxaad noogu soo gudbin kartaan gmailka ciwaankiisu yahay xadaari2122@gmail.com. inagoo idinka jawaabi doona soona geli doona muuqaala kale si aanu idinka jawaabno. sidoo kale waxaa muhiima inaad noo soo gudbiso waxyaalaha aad u aragto inaanu kusoo kordhino barnaamijka iyo sidoo kale waxyaalaha aad u aragto inaanu barnaamijka kusoo dorno ama aanu ka ilownay. waxaad nagu soo qori kartaan halka hoose commentiga wixii khaladaad aad ku aragtaan barnaamijka anagoo dib ka sixi doona barnaamijyada dambe. aad baad ugu mahadsantihiin.